السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meeshaad naga daawanaysid waa chef Braar maanta waxaan wadnaa qado isku fadhido oo kaale iska arage si yaroo fudud baan u sameysanay reseptigeeda uu ku qancin doonaa insha Allah iyo waqtiga la geliyay intaba bariis baan u sameysanay muhiimadu waa suugadan inaba caadi ma ahan haddaa baratid waxaan sameysanaynaa khudaartii baan soo diyaarsanay halkaa koob bariis ah noo yaalo sidoo kale koob digirta gaduud ahayd baa noo taalo oo digirteena iyo annaga iskale digirtaasi sidoo kale waxaa noo yaalo koob yaanyo shiishiid ama hal disiliitar oo yogar ah halkaa xawaajiyadeena noo yaalo isku dardar liin dhanaan baa noo taalo saliid iyo olyoliif isku jirtaa noo taalo cusbo iyo halkaas noo yaalo halkaa kaarood iyo bataati macaan iyo laba barbarooni kala nooca basal iyo yaanyo iyo baqdoonis aan isticmaali doonaa alaabtan aad baad uga helaysaa marka hore saliidda bariiska furfur hadduu rabo inuu kuu noqdo saliid ku dar sidoo kale cusbo ku dar bariiska intaasaan ku karin doonaa insha allah sidoo kale waxaan sameynaynaa digirtii waa soo dhaqanay ayadana digirtiina waa soo karsanaynaa digirta biyo la dhig habeenkii la dhig ama subaxdii hadba tii ku fudud waayo waqtiga yar baad ku samaysanaysaa ay kugu bislaanaysaa waqti dheer ma sugi doono insha allah saliidii baan dabka saaranay asxaabey waxaan ku shubanaynaa basasha marka hore si fiican biyaha uga baxaan xoog u kalaankal kabacdi yaanyadaan isticmaalaynaa haddii alla idmo laba xaba yaanyo timaadaan isticmaalaynaa basasha saasa usoo shiilanaynaa asxaabay alaabtan aad baad uga helaysaan waa qada dhammaystiran oo kaale iska arag ah yaanyadii baan hadda ku shubanay basasha iyo yaanyada si fiican markay isku dhex galaan insha allah inta dambe u isticmaali doonaa marba step bay maraysa sugadaan marba waxbaa lagu darayaa hadda waa ujeedaa saasay isku soo noqotay hilibkii baan ku darsanay sorry hilibkaas daayma sheeginin hilib baa noo yaala finijeer kala baxnay oo soo kuleylisanay xoogaa barafka kasoo ridnay intaa isku qale si fiican isku dhex gasho sugadan waad ka heli doontaa aad ayay u macaan badan tahay yaanyadii baan ku darsanay yaanyo gisaac weeye isku qale intaas isku wad hadda ujeedaa maraq digaag iyo xawaajiga isku dhex darka ah iyo barbarooniga shiidan wax yar filfil aan ku darnay iyo xawaajiya aan inta badan waxaan isticmaalaa isku dardar oo all xawaajiyaasha oo dhan isku jiraan mar walba waa isticmaalaa xawaajigaas wax kastana waan u isticmaalaa digirtii baan hadda ku daray sidoo kale yogarkii baan ku daray kaaroodkii baan ku daray hadeertaan iyo bataati macaankii bataati macaan oo fahmaysaan waa bataatiga kaaroodka u eg intaasaan isku walaaqeynaa insha allah biyo ma u baahna suugadan sidoo kale wax biyo kuma daraysid oo ujeeda ayadaa biyo dhashay waxaana caawiyey caani yogarka ahaa yogarka dhanaan weeye alaabtan caadi ma xalwad camal ay usoo karsantay asxaabay waa ujeedaan hadda basbaaskii kaarood iyo barbaroonigii baan isticmaalaynaa labada nooc ahaa kaale iska arag alaabtan caadi maaha sidoo kale wax yar liin ah waan isticmaalaynaa liin dhanaan ah isku walaaq hadda sidaanayba noogu bishishahay waxaan sameynaynaa baqdooniskii iyo basashii gaduudneed baan ku darsanaynaa alaabteeda asxaabay saasay diyaar noogu tahay la cuno bisay rabtaa bariiskiina waa noo diyaar aad baad nagu mahadsantihiin asxaabay daawashadiina haddaad nagu cusub tahay waad ku mahadsan tahay nagu soo biir wax waad naga faa'iideysaa haddaad nala joogtay sidoo kale waad mahadsan tahay like-taa naga ilaawinin inaad sii sheer garaysaan saaxiibadiina la wadaagtaan maadaama wax fiican uu qof walba u baahan yahay inuu sameysta ay tahay waa ujeedaa hadda bariiskii laba nooc aan soo sameysanay mid saxan aan kusoo ridano midna baaquli steebka rabtid ku cun iyo sida aad rabtid adiga haddaa rabtid isku dhex walaaqa basbaas moos inta usoo qaadatid salad xataa uma faahno cunadan ayadaa full ah alaabtii waa taas asxaabay saasay kusoo baxday kaale iska arag liin dhanaan iyo basal shacayrin anu waan jeclahay bariiska inaan ku cuno ilaahay amarkiisa wax yar baqdoonisaan korka kaga darsanaynaa alaabtan kaale iska arag wey waa ujeedaan sadar muuqda su-aalka dhan mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin sugadeena way badnayd annaga intaas waa dhigan doonaa insha allah aad baadna mahadsantihiin waxaan leeyahay ka faa'iidaysi wacan bariiskiina waa furfur waa ujeedaan kaale iska arag